Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada YouTube channelkayga Fahme Caadil. Aad u mahadsantahay haddaad hore noola joogtay. Haddaad noo soo biiraysana fadlan subscribe noo saar, like noo saar. Aad u mahadsantahay walaal. Tookadii hore muuqaalkan waxaa noo mareysay ayadoo ku dhehaysa nolosheeda ka bax aad ayaan ku dhibsaday. Igana fogaaw mana ku rabo aniga. Ugu dambeyn ayada way ka soo tagaysaa. Asiga run ahaantii aad iyo aad ayuu u nijabayaa. Kadibna wuxuu ku soo laabanayaa meesha ciyaarta. Guuldaradii ugu dambeysay ayuuna gaarayaa asiga. Sababtoo ah markii kasii dambeysay guuldaro oo kaliya ayuu soo hooyinayay. Kadibna ayada indhaha ayay ku taagaysaa waxaan la yaabaysaa asiga sida uu u ciyaarayo. Asigan markii ugu dambeysay ayuu isku dayayaa inuu guuleysto. Kadib asxaabtiisa ayuu la shirayaa wuxuuna dhahayaa waxaan aan wax ka bedelno. Yacni markii ugu dambeysay aan guuleysano. Ayagan way ku dhahaa weynay saadkeenayaan. Ugu dambeyn waxaa guuleysanaya kooxda Royal oona ka mid tahay adooraheena filinka. Banoonigan asiga ayaa la soo xararay. Ciyaarta meesha ka dhacdayna atiriishadeena way la yaabaysaa oo way fiirinaysaa geesnimada halkoo ka keenayaan isdhaysaa. Ugu dambeyn markii ugu dambeysay oo guuleysto way kala fogaanayaan. Sanadooyin badanna labadooda isma arkayaan markay jaamacadda dhameeyaan kadib asxaabtiisa ay wada kulmayaan. Farxad ayuuna ku soo dhaweynayaa sheeko wanaagsan ayaana halkaas ka dhaceyso. Weligoodna way wada farxayaan. Asigan wuxuu ka shaqeeyaa hadeertaan gym. Waana macallin gym ah. Macaamiishiisana aad iyo aad ayuu u soo dhaweeyaa wuuna jecel yahay mar walba inuu caawiyo. Ugu dambeyn gymkiisa waxa uu sameynayaa qiimo dhimis. Waraaqadaha ayuuna qaadayaa dadka magaalada dhan ayuuna hal u siinayaa. Asigoo hawshaas ku guda jira ayuu wuxuu arkayaa saaxiibadiisa X yacni qoftoo jeclaan jiray aad ayuuna ugu farxayaa run ahaantii. Si xunna wuu u fiirinaya kadibna wuu soo dabraacay yacni meesha ay gasho. Kadibna wuxuu arkayaa iyadoo sawiro laga qaadayo ayadii mid kale weliba. Yacni waxay ka shaqeysaa meel fashion ah oona yacni xayeysiimaha iyo waxyaabahaas loo sameeyo. Kadib markii aragta banaanka ay isku soo raacayaan labadoodna waxay isla cabayaan cabitaan wayna sheekaysanayaan. Ayada run ahaantii aad iyo aad ayay ugu farxaysaa aragtidii ayada ay aragtay. Waxayna ku dhahaysaa muddo badan ayaad iga maqneeday maanan is arkin saaxiibo anigoo ahaynne weli xataa taleefan hadda iskuma dirin maxaa qaldan camal. Asigana wuu ka qosol siinayaa mar walbana waa la sheekaysanayaa. Ayada run ahaantii markay asiga aragtay aad ayay iskaaga qosashaabo. Yacni way iska sheeko jeceshahay. Kadib waxay u sheegaysaa bari inay meel xayeysiin ku leedahay ee asigana ku casuunto oo imaan karo. Kadibna xayeysiinta ayaan arkaynaa iyadoo diyaarinayso laakiin geedkii si qalad ugu dhacayo. Ninkan aad iyo aad ayuu wax naaqaya wuuna ku qaylinayaa. Wuxuuna ku dhahay maxaa sidaan ka wadaanay tan kale kaamir ayaan ugu socoto. Kadibna way ka raaligelinaysaa midaas. Shadna si caadi ayay u wadanaysaa. Marka labaad ay sameynaysa xayeysiintan wax waaye inay badda gasho malaay soo qabatay kadibna aad iyo aad ay ugu farxdo. Yacni iyadoo xayeysiinta sameynaysa malaaygan inuu dhintay u maleyso ayaa malaay ku soo kacaybo. Kadibna farq iyo isina ayadan aad iyo aad ay ugu naxaysaa malaaygan way tuuraysaa wayna qaylinaysaa. Kadibna waxay leedahay aadan oo wuxuu midkan wuu nool yahay. Ninkan wuxuu ku dhahayaa beel ayaa tahay xayeysiintaada ma sidaanaane anaga miyaad na qasaarinaysaane oo ma sidaan aragtaa inaad heer ku gaarto gabar fiican matiida ayuu ku dhahayaa shaqadaadan ma ilaalsanaysid. Kadibna asiga aad iyo aad ayuu midaas ugu xumaanaya maadaama mar walba uu ku qaylinayo. Habeenkiina waxay siinaysaa lacag waxaana ku dhahaysaa maadaama maanta dhan ay la joogto qaado. Asiga wuu ka diidayaa wuxuuna siinayaa buug ay xasuusihiis ku duugan yihiin. Kadibna wuxuu ku dhahayaa adiga ayaan kuugu talgalay. Aydan way ka helaysaa waxayna ku dhahaysaa waan ku faraxsanahay waadna mahadsan tahay. Asigana aad iyo aad ayuu u farxayaa wuxuuna ku dhahayaa waxaan rajeynayaa inaad ka heshid. Tan kale berina isla kulanno weliba adigoo intaan ka farax badan. Kadibna waayahay ayay ku dhahaysaa waxayna imaanaysaa qolkeeda waxayna arkaysaa disneyada ayada mar walba ay sawiri jirtay in adduunka ugu jecleeday asigana inuu sawire. Kadibna waxay ku dhahaysaa wax walba ku riyoona asiga sidoo ku ogaadayna waxayna soo xasuusanaysaa markuu qoslaay. Waxayna ku dhahaysaa ilaahay hadeertaa ma jecel yahayna mise mar hore ilooga saaxiib ayuu yeeshtay. Kadibna waxay meesha ka dhex arkaysaa markay ishiminayeen weliba dharkay wateen weliba xeebtay fadhiyeen iyo sidoo u qurux badan yahay. Adigana aad iyo aad ayay waxyaabo kale u dareemaysaa waxayna isdhaysaa maxaa qaldan. Habeenkii dhan way fikiraysaa ugu dambeyn subax ayay is arkayaan. Ayadan maadaama shaqada u socoto meesha waxay ku saaranaysaa maaski asigan mar walba wuu fiirinayaa. Kadib maaski iska soo dejinaysaa maasid ayaa u soo dhacayo. Maasidkaas ayayna fiirinaysaa. Kadib asiga wuu fiirinayaa laakiin taleefanka inay qabato ayay gedinaysaa sidoo asiga dib ugu arkin. Asigan wuu la yaabayaa sidii u dhaqmayso. Yacni wuxuuna ogaanayaa weli ayadii saaxiibkeeda inaysan kala lamaane in is jecel yihiin. Ugu dambeyn subaxyada ka mid ah ayay taleefan u soo diraysaa waxayna ku dhahaysaa magaalada ma isku raacnaa maanta maadaama aan fasax leeyahay. Asigan wuu ka ogolaanayaa wuxuuna ku dhahayaa waayahay. Ugu dambeyn waxay soo wada raacayaan bas ayagana waxay ku heshiinayaan inay aadaan baar.
Aadan waxay ku dhahaysaa aadan ugu faraxsan inaan baar aado adigana kaagama baahan inaad qamri badan cabto waad ogtaa isku darsamaysaa haddii qamri badan aad cabto asigana aad iyo aad ayuu u qoslaya waxaan ku dhahay iga daa waxyaabahaas ugu dambeyn labadoodba qamri ayay wada cabayaan aadan sheekadooda ugu sheekeynaya mar walba ay jeclaan jirtay aad ayayna ugu farxaysaa kadibna asiga qamri badan ayuu isku daldalayaa subaxii kalena wuxuu soo kacayaa asigoo qaawan oo meel jiifo kadibna aad iyo aad ayuu naxayaa wuu soo boodaya wuxuuna dhahayaa maxaa qaldan dharkan yaa iga siiwe banaankii uu soo baxayaa hooyo ayuu ku dhahay dharkii yaa iga sii weyne maxaa qaldan tan kale gabadhi maan dharkii iga siitayne kadib hooyada waxay dhahaysaa xal anigoo jiifa albaabkiyaa laisoo gargaraace markaan ka furayna waxaa ogaaday saaxiibadaada inay tahay aadan waxay ku dhahday wiilkaaga aadan u manmantagayaa soo bax anigayaa kusoo tusinaya dib waan soo raaxay intaanan ku arkin adiga musqusha ayaa ku carartayba musqusha markaan labadayna furnayn waxaan ogaanina aad iyo aad u mantagaysid dharkoo dhanna iska siibtay aadan aad iyo aad ayay u xishoota anigan aadan u mantagay yacni labalba ayaanba kaa qaadayba meeshan waan iskaaga soo cararay markaasaa dhahaysaa aniga maa saanyaa iyeele warsoco ayaa ku dhahaysaa dabaale waxadan xamil karin maa iska dhaaftidne asigana aad iyo aad ayuu u oonayaa dhulka ayaanu ku rafanayaa waxaan ku dhahay maxay tahay noloshan oo khiyaanada badan oo sidaan laisku galaya kadib inta uu geedka ugu seexanaya waxaa kasoo dhacaya geed yacni ciwaan waxyaabo lamid ah kadibna subaxii way is arkayaan oo way soo raacayaan kadibna taleefon ayaa saaxiibkeeda usoo dirayo saaxiibkeed ayaan la sheekeysanaysaa laakiin ayada waxaa loo sheegayaa waxyaabo ay ka naxdo kadibna waxay isku dayaysaa inay la hadasho ayna ku dhahdo waa ku baryaa sidaan ha igu sameynin laakiin taleefonka wuu ka baxayaa run ahaanta nafis ayay dareemi weynaysaa baawarkan way kasoo degaysaa meel banaan ayayna iskaaga soconaysaa sidai ayada nafis u hesho run ahaantii mana oonoosa mana aamusan laakiin aad iyo aad ayay u niijabaysaa asigana gadaal ayuu ka qaylinaya wuxuuna ku dhahay maxay tahay noloshaaneeti maxay tahay sida aniga la ii galayne maxaa waay qof walba aan jeclaado sidoo ii galayo qofku waxaa loo baahanyahay si kastoo loo gala siga inuu qayliyo niyadiisa oo ka hadla marka meel sidaan oo kale oo joogo waxaa loo baahanyahay inuu dhaho qofaan u baahanahay malaha nolosheydan aniga yaa xukuman karo waxaa loo baahanyahay inuusan oonin waxaa loo baahanyahay wax walbo niyadiis ku jira inuu sheego ayadan ilinta ayay iska tirtiraysaa waxayna ka codsanaysaa meela weligeed jeclaa jirtay inuu geliyo kadibna markii meesha ay imaadaan waxaa arkaynaa inuu ku fulan yahaybo asigana aad iyo aad ayuu u niijabaya laakiin wuxuu dhahay sidaan sameyn jirna ayaan sameynaynaa haye soo kor camal ayadan way ka ogolaanaysaa maadaama aad iyo aad ay ugu cabsanaysan geesaha ayay fiirinaysaa kadibna siday noqoto ayada way iska soo koraysaa maxay sameyn kartaa meeshan way u baahantaa maho asigana wuu kasoo dawgalayaa kadibna beerta ayay gudaha usoo galaya weliba iyagoo aad iyo aad u faraxsan ayada run ahaantii beertaneed aad iyo aad ayay u jeceshaa mar walbana carafta kasoo baxayso waxay jeceshaha inay uriso asigayaan waxay ku dhahaysaa haye soo baxay si fiican aan ugu soo wareegno kadib meel qurux badan ayay soo galaan labadood meel ayay isla fadhiisanayaan kadibna wuxuu ku dhahaa nolosha aad iyo aad ayay u qurux badantaa waxayna ku qurux badantaa mar walba in la faraxsanaado ayadan way ku qoslaysaa waxay ku dhahaysaa adiga waxaa sheegaysa wax kalab qosol ayay leeyihiin kadibna way canaysaa waxayna ku dhahaysaa doqonna waad u egtahay kadib markay ka cararto waa dawbuursanayaan asigana wuxuu ku dhahayaa istaag kadibna si qaldan ayuu u qabanayaa ayadan si xun ayay u fiirinaysaa asigana si xun ayuu u fiirinayaa kadibna wuu u dhawaanaya wuxuuna isku dayayaa inuu shumiyo laakiin ayada hoos ayay ka fiirinaysaa asigana wuxuu ogaanayaa maadaama inay jabsantaa dartaan shumis inaysan u baahnayn yacni wayna kasoo tegaysaa kadibna aad iyo aad ayuu u fikirayaa aniga wax qaldan maxaa mar walba u sameeyaa ayuuna dhahayaa haweenkii dhanna aad iyo aad ayay u fikiraysaa baawarka mees la soo raacaya labadoodna maba isla hadlaayaanba kadibna wuxuu keenayaa gurigeeda kadibna way kasoo deganaysaa waxayna ku dhahaysaa yacni halkan ayaan ku deganayaa macsalaamo asigana uu kasoo dawdegayaa waxaan ku dhahayaa ilaa goormeed iga fogaanaysaane mar walba waxaan jeclaa inaan kusoo dhaweysto nolosheydana ku jiraatid laakiin adiga waad iga fogeysaa qafyaalo kalena inaad jaanisis waa jeceshaa hatartaana qalbigayuu kaa jabiyay waad aragtaa ilaa goormee aniga igu tumanaysa ayadan waxaa ku dhahaysaa anigii adig waxaana oo kaliya saaxiibo waad mahadsantahay ayuu ku dhahay meeshan waa ugu soo dhaqaaqayaa ayadan wayse dawbursanaysaa waxayna ku dhahaysaa ifahna waa ku baryaa sidaad adiga u maleysid ma ahan waxaan ka bado kadibna subax xigta meel shaqada ugu imaanaya waxaan ku dhahay garaal noqo ayadan gacanta ayay kasoo qabanaysaa waa ku baryaa ayay ku dhahaysaa shaqadeeda ha iga qasin aniga mar walba aan kula kulma jeceel waxyaabo kale xiriir kale aad iisoo bandhigaysaa anigana waxaan jeclahay saaxiibtinimadaada iyo noloshaada quruxda badan mar walba inaan ku jira aan iga saaran laakiin jaceylkan xun ayaad noloshaada igu wareerisay qof walba aniga aan la kulmay niyad ayuu iga jabiyaa adigana waxaan ka cabsanaya inaad niyada iga jabiso
waan ku baryahay ku dhaysan nolosheeda ka fogow hadii saaxiibtinimadeeda aan rabin asigana wuxuu ku dhahay waan ku baryaa aniga iga raali noqo aniga waan jeclahay inaan saaxiib kula noqdo inaan kula joogo inaan ku jeclaan nolol sameysana waan jeclahay adan waxay ku dhaysan aniga ma baahna nolol kadibna meesha ayaa uga soo dhaqaaqaysa run ahaantii asiga aad iyo aad ayuu u fikiraya wuxuu la yaabaya gabadhan sida isku adkeynaysa laakiin wax ayaaba soo dhacay waxaas markuu arkan aad ayuu u naxaya kadibna asiga ayaa isku dhigaya dhabarkayana ugu dhacaya maskiinka kadibna way kicinaysaa wuu ka ciweynaya sababtoo asiga wuu suuxay kadib asxaabtadii waxay ka codsanaysaa ambalaas inay u keenaan ugu dambeyn ambalaasta ayaa la keenaya asagana waxaa lasoo seexinaya isbitaalka kadib markuu soo naxay wajigeeda ayuu arkaya wuxuuna ku dhahay ilaa iyo hadirtaa ma bixin may ayay ku dhahaysaa waxaan u joogay maadaama aad tahay qof wanaagsan marabi inaan kaa tago camal asigana wuxuu ku dhahay waad mahadsantahay kadib ay usoo dhawaanaysaa afka ayay ka shiminaysaa yacni mahad celina laga wadaano marka hore waxaan kaaga fogaanay qof xun ayaan kuu maleynaya ku dhahaysaa laakiin hadeertaan aad ayaan kuu jeclahay asigana wuu ku farxaya inuu ku boodo ayuuna shumis oo la dhacaya ku dhahay yacni mac ayuu siinaya asxaabteyda qaaliga ah qaybteena saddexaad ee musalsalka noo socday sidaas ayuu ku dhammaaday muuqaalkan taa ka hesheen leeg noo saara sabskraib noo taabta gambalaalka furta aadaad u mahadsantiin tan kale asxaabi waa idin baryaa 20 kun gaarsiiya waxaan isku dayayaa ayaantan oo dhan si yacni maalinla inaan wax usoo gudbiyo insha allah mac salaamay